qofna jannada gali maayaan ilaa ummadaydu ay gasho maahine qabuuraha ayuu nabigu ziyaartay baqiic markaasuu u duceeyey wadidtu low annii ra'aytu ikhwaanii waxaan jeclaaday buulan jeclaysan lahaa inaan walaalahay arki lahaa asxaabtu waxay ku yidhaahdeen awalasnaa ikhwaanaka miyaan anaku walaalaha ahayn laa antum asxaabii ininku asxaabtay baa tihiine walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doona ee rumayn doona iyo kuwa aniga arag buu rasuulku yidhi sideed u garan doontaa saxaabadu waxay yidhahdeen dadkaas maabad arakin adigu iyakuna kumay arag sideed u garan doontaa qiyaamaha halkay wejiga dhulka dhigayeen ay weysada marinayeen oo iftiimaysa ayay banka hawdka igu iman doonaan buu rasuulku yidhi 120 saf ayaa jannada galaysa buu nabigu yidhi dadka ahlu jannuhu waa 120 saf 80 saf baa ummadayda buu rasuulku yidhi atardawna an takunu ruba ahli aljanna qulna bala abdullah ibn mas'ud baa yidhi nabiga maalina uu riyo wuxuu nagu yidhi raalima ku tihiin ummadaha marka loo qaybiyo 4 qaybood dadka jannada galaya 4 marka loo qaybiyo qaybna noqotaan raalima ku tihiin asxaabtu waxay yidhaahdeen ha atardawna an takunu thuluth ahli aljanna ahlu jannaha marka 3 loo qaybiyo qaybna noqotaan ma ku tihiin raalli baan nahay yidhaahdeen markaasuu nabigu yidhi walladii nafsu muhammadin biyadihi innii la arju an takunu nisfa ahli aljanna waxaan rajaynayaa oo ku rajaweynahay kay abuuray baan ku dhaartee jannada inaad kala badh idinku degaysaan baan ku rajaweynahay buu rasuulku yidhi ilaahay ummadiisii buu inaga dhigay ilaahay uu ina karaameeyey wuxuu nagu karaameeyey waa maxay ummadihii hore shay keliya unbaa laga rabay keliya bas ilaahay inay ka yaabaan ay caabudaan ama ummadan 2 shay baa laga rabaa 2 shay ilaahay inaad ka yaabto waa laga rabaa ilaahay inaad caabuddo waa laga rabaa aakhiradan inaad u shaqaysato waa laga rabaa khalqiga adduunyada kugu nool bashariyada inaad arinta ugu yeedhana waa laga rabaa maqarin nabigu uu cadeeyay ala la nabiyya ba'di wala ummata ba'dakum marbu nabigu cimrigiisa xajiyay markaliya markiina wuxuu yidhi ani nabiga dambeeyay ma jiro ummada niga dambeysana ma jirte ala falyuballigha shahida minkum alghaiba kiina maanta ila joogay maqlayo kiina maqan gaarsiibu rasuulku alayhi salatu wasalaam ballighu anni addu anni rahimakumullah allah inii naxariiste amaanada qaado caalamka iga gaarsiiya allahumma sur man nasara diina muhammad ilaahu ninkii diintayda u gargaar